بسم الله الحمد لله رب العالمين maanta waxaan qaadanaynaa casharkan 16aad ee ku saabsan pharmacology waxaan ku jirnay qaybtii antibioticska ama anti-infectionska waxaan ku jirnay waliba groupka ahaa penicillins waxaa kamid ah maadada loo yaqaano amoxicillin tiradname ahaan waxay ku imaan kartaa amoxicillin, amoxicillin, amoxicillin waxyaalo fara badan oo kale way jiraan sida amoxicare amoxicillin waa badan yihiin class ahaan markaan ka hadlayna antibiotic penicillinka ayay ku jirtaa haddaan fiirino shaqooyinka ay qabato meeshan waxaan warbixin yar oo lagu siinaayo oo ah inaad sii ogaato loo baahan yahay inactivated by penicillinka waxyaalaha aan waxba iska qabanin la shaqeynin uusan daaweyn karin waxaa kamid ah that produced by staphylococcus aureus kuwan groupka loo yaqaano staphylococcus waliba noocan aureus-ka ama staphylococcus aureus-ka ku la yiraahdo gram negative bacillus iyo gram negative nooc kamid ah bacillada waliba waxyaalahaas oo dhan badanaa amoxicillin wax kama taro acid ahaan marka la fiiriyo waa stable oo acidkeed ma badno broad spectrum antibiotics ay ku jirtaa kuwa ugu awood badan antibioticada sidoo kale absorbed well from GIT waxaa si wanaagsan loogu soo nuugi karaa oo jirku ugu nuugi karaa GIT-ga inta lagu guda jiro way fiican tahay macnaha absorption-keeda ma ahan mid adag oo aan jirku wax badan ka helaynin ma ahan amoxicillin marka intaas hadaan u gudubno warbixinta qaybtan waxaan geli doonaa isla asaga noo sii socda useskiisa ayaan rabnaa inaan ogaano maxaa loo isticmaalaa urinary tract infection UIT habdhiska kaadi mareenka infectionada ku dhaco dhan ayaa loo isticmaalaa way u fiican tahay respiratory infectionskana sidoo kale waa very important ay u tahay skin infectionska cudurada ku dhaca maqaarka ayadana way u fiican tahay gonorrhea oo ah cudurada loo yaqaano STD ama cudurada ku faafa galmada ayadana muhiim ay u tahay oo waa loo isticmaalaa dosage formka qaabka ay ku imaan karto waxaa kamid ah capsule ahaan iyadoo 250 mg suspension iyadoo sharoobe oo ah 125 oo shan inay u dhiganta iyadoo 250 waa la helaa maximum forte capsule jiro 500 mg maximum forte suspension oo sharoobe jirto 250 dosage marka 250 ilaa 500 meelahaas ay ku imaan karaan inta sidaan u gudbino qaybtan dosage-ka amoxicillin marka intaas ugu muhiimsan haddaan fiirino cloxacillin muxuu yahay asagana trade name ahaan waxaa loo yaqaano orbenin classka wuxuu ka tirsan yahay antibiotic penicillin group ugu jiraa more resistance waa kuwa ugu badan ee jirka macnaha resistance penicillinka marka laga hadlayo then is penicillin G marka penicillinska laga hadlayo kuwa ugu badan oo resistance jirka uu la qabsaday kamid yihiin oo raba in maadooyinka lagu daro maxaa loo isticmaalaa infection caused by penicillinase badanaa waxaa loo isticmaalaa infectionada ay sababtay penicillinase producing staphylococcus oo waxyaalaha ay sababtay iyo groupkeeda streptococcus nooc loo yaqaan bacteriyada pneumococcus nooc la yiraahdo waxaan dhan waa group of bacteriyada labka marka la baranayo badanaa lagu kala bartaa staphylococcus streptococcus iyo pneumococcus iyo gram negative gram positive nooc ay ka tahay formkeeda macnaha qaabka loo yirisaas magac loogu bixiyay marka badanaa infectionada ay sababtay staphylococcus ay wax ka qabataa loo isticmaalaa sidoo kale osteomyelitis-ka ayaa loo isticmaalaa oo osteaha ama infectionada ku dhaca lafaha kala sidoo kale infections ayaa loo isticmaalaa oo infected wound ambaanis dhaawacyada iyo meelaha gubtay oo kala nabarro kala septic arthritis-ka oo kala goysyada oo kala iyo waxyaalahaas oo kala pneumonia loo isticmaalaa respiratory disease-ka dosage formka ku imaan karta waxay tahay vial iyadoo cirbad iyadoo containing 250 mg ama 1 gram iyadoo 250 ilaa iyadoo 1 gram 500 mg taa wuu ku imaan kartaa capsule ahaan 250 ilaa 500 ku timaada sharoobo 125 ilaa 250 mg waa sida ugu badan noocyo kale ku imaan kartaa 400 iyadoo waa la arkaa dosage-ka markaan ku sii jirno 250 ilaa 500 childrenka markaan ka hadlayno 50 kilo kala kilogram per day in 4 divided doses wadaan loo qaybinaa qaabka loo siinana waaye nerds-ka oo kale waxyaalaha la amraa waxaa kamid ah administer an empty stomach qofka waxaa siinaysaa asagoo baahana badan la siiyaa refrigerator waa inuu sameysaa reconstituting solution discard and remain amount after 14 days macnaha iska daadi haddii 14 beri ay tahay loo kala daawadaan to prepare oral suspension add amount of water start
on level and shake where haddii sharbato kala waxaa ku dareysaa biyo lagu qaso lagu talagalay in borderkaas lagu ruxo. Shake the bottle well before each use. Mar walba aad rabto inaad isticmaasho daawadan waa inaad ruuxdaa. Dosagekeedi waa intaas. Waxaan gelaynaa daawadan ayadana kamid ah penicilliniska loo yaqaano penicillin G. waxayna ka timid benzathine and procaine labadaas xabo oo combined la isku daro waxa loo yaqaanaa penicillin G. Trend name-ka wuxuu noqon karaa penicillin waa double penicillin ama procaine benzyl penicillin. magacaana ku caansantaa marka procaine benzyl penicillin. classkeeda waa antibiotic penicillin waxaa loo isticmaalaa useskeeda waxay tahay streptococcal infectionska without bacteremia haddii aysan macnaha bacteremia aysan jirin oo kale aysan areas emia blood waa macnaha dhiig aysan gaarin oo kale halis aysan badan keenin. upper respiratory tract infection loo isticmaalaa sida tonsillitis-ka qumanka oo kale pharyngitis-ka dalaqada oo kale waxyaalaha ku dhaca infection otitis ayaa loo isticmaalaa dhagaha oo kale ama otitis media infectionada ku dhaca dhagaha. skin and soft tissue infections infectionada ku dhaca maqaarka iyo meelaha soft tissue sida carabka iyo dhibxanaga waxyaalahaas oo dhan. sclera viper oo kale qandhooyinka sclera viper oo kale qandhooyinka waxyaalahaas oo kale u sabab ama nooc loo yaqaan cudurkan sclera viper oo kale loo isticmaalaa. acute glomerulonephritis oo kale dadka keliyaha badan infectionada ugu dhaceen oo waliba glomerulka nephritis oo kale infections ama caabuqyo ku dhaceen oo kale la siiyaa. gonorrhea oo cudurka jabtada taqaaniin and syphilis oo cudurro la yiraahdo STD cudurrada ku faafa galmada. rheumatic fever waa cudur caan oo jira ayaa sidoo badan loo isticmaalaa. marka waa caan daawadan penicillin G la yiraahdo waa antibioticskan penicillin group loo yaqaan kamid tahay. formulation marka qaabka u samaysantaa vial cirbad ahaan ku timaadaa iyadoo 1.2 ama 2.2 ml waa macnaha cabirka loo isticmaalo ayaa la yiraahdaa MUS. MB marka fiiri penicillin G markaan ka hadlayna is inherently rapid in action while procaine penicillin G provides penicillin G is a prolonged action from macnaha waxay kamid tahay waxyaalaha sida degdeg ah ku falgala oo loona baahan yahay in dib loo dhigo macnaha falgalkeeda. consideration classina maxaa hypersensitive to penicillin dadka penicillinka ku hypersensitive sida ku qabo lama sii karo. side effect-iga leedahay maxaa kamid ah nausea oo labe vomiting hunqaco stomatitis oo qofka inay calooshii xanuunto kala skin rash finanik soo baxaan. stomatiska waxaan kusoo aragnay cudurrada ku dhaca afka iyo kuwa kale kamid ah keeni karta carabka iyo xasan go'aan qofka. sidoo kale anaphylaxis ayaa kamid oo kale qofka inuu nooc kamid ah shoog oo kale ku yimaado waxyaalahaas oo dhan ay keeni kartaa marka waa problemskeeda ayaa ka dhasha way. dosagekeeda markaan ka hadlayno IM only ayaa badanaa laga qaataa IV ahaan looma qaato. dadka waaweyn waxaa la siiyaa 1.2 ilaa 2.4 intaasay gaartaa 10 maalmood ayaa la siiyaa for streptococcal marka laga daaweynayo infections. periodic ama xilliyada la qaato kala cabiradeeda 600 way leedahay 1000 ilaa 200 laga qaataa. nursing waxyaalaha ugu muhiimsan la rabo inay ogaadaan waxay tahay shake multiple dose vial tergios before watering and desired dose. macnaha mar walba waxaa loo baahan yahay in shake lagu sameeyo daawadaas la qaadanayo oo qofka la siinayo si ay u noqoto mid isku dhex qasan isku jirta. use 20 gauge of needle don't allow medication to remain in the syringe. macnaha cabirka isticmaalinaysid middle cirbada kale waa inay cabirkoodu yahay mid 20 gauge oo cabirkeedu uusan yareyn. sidoo kale haddii daawo cirbad ku hartayna dib ha u isticmaalin for the long period that talo kala before administrating because the needle may become plagued and syringe for reason waxay keeni kartaa macnaha inuu needlekaas dilacsan yahay kala problem ay karto. inject slowly the muscle muruq markaad duleysno inay si tartiib ah cirbada ugu shubtaa waayo laba rabo inay si degdeg u gasho. don't massage the injected side meeshii lagu duray cirbadana waxaa la rabaa inaadan massage gareyn oodan massageenin ama aad burburin si hadaa burburiso waxaa amaanaysa in si degdeg ah daawadaas jirka u gasho loona baahan taas. before injecting the medication aspirate the needle and x-ray that needle is not in a vein. waa inaad macnaha hubisaa intaadan qofka durin oo kale in cirbada ay tahay mid shaqeynayso kala sababtoo xidid ma ahan waxaa laga yaabaa inay si qaldan ka noqoto. rotate the side of injection mar walba kala bedel meesha qofka ka duraysid maalin walba ha ku celcelin. don't administrate IV ha ka siinin marna intravenous ahaan. if it's large haddii ay badan tahay the available muscle
is a small divide in those into the injection sites. Haddii macnaha daawada ay tahay mid fara badan muscleska la heli karana ay yihiin kuwo yar, daawada laba u qaybi, labada dhinac kala sii. Intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa qaybteenii ku saabsaneed antibioticska qaybtii penicillin G-ga ahayd.